Maalin waagii hore ahayd oo taariikhda Soomaalida lagu xasuusto waxaa jirtay boqorad caan ka noqotay magaceeduna ahaa Caraweelo. Waxay ahayd haweeney caqli dheer, hadal adag oo aan cidna ka labalabayn markay go'aan gaadho. Ka hanti qaybsiga iyo dagaalka hagayay, halka haweenka loo xilsaaray oo keliya shaqooyinka guriga iyo carruurta. Laakiin Caraweelo waxay ahayd mid aan ku qanacsanayn nidaamkaas. Waxay aragtay in dumarku ay yihiin laf-dhabarka reerka, iyagaa taraya carruurta, ilaalinaya dhaqaalaha, oo hubiya in qoyska badbaado. Haddana raggu waxay u qaateen in dumarka aanay wax xuquuq ah lahayn. Caraweelo waxay istiri, tani ma socon karto. Waa in dumarka loo hiiliyaa, laguna maamuusaa sidii ay mudan yihiin. Markii ay boqorad noqotay, waxay dejisay xeer cusub in dumarka ay noqdaan kuwa talada leh. Waxay ku amartay in raggii reeraha xoogga lahaa hubkooda laga qaado oo dumarka la siiyo. Dumarkii ayaa markaas qoryo iyo seefaf gacanta ku dhigtay, waxayna noqdeen ciidan awood leh oo ilaalinaya boqortooyada. Ragga qaar aad bay uga caroodeen, waxayna u arkayeen ceeb in ay dumarku ka sareeyaan. Hase yeeshee boqoradda oo caqli badan ayaa la hadashay bulshadii, waxayna tidhi, raggu intay dagaal iyo xoolo ku mashquulsan yihiin, dumarku iyagaa carruurta korinaya, nolosha dejinaya, nabadda ilaalinaya. Haddii aan anigu talada dumarka siinayo, waa si aan xaqooda ugu celiye. Waxaa la sheegaa in dhalinyaro geesi ah uu isku dayay inuu xukunka Caraweelo jebiyo. Habeen ayuu shir qarsoodi ah la yeeshay rag kale oo doonayay inay dib u soo celiyaan xukunkii raggii. Laakiin haweenkii askarta ahaa ayaa ka war helay, waxayna qorshahoodii ku fashiliyeen. Ninkii geesiga ahaa laftiisa waxaa lagu qabtay magaalada dhexdeeda, waxaana maxkamad hor istaagtay boqorad Caraweelo. Caraweelo markay aragtay wiilkaas dhalinyarada ah oo ilko cad, xoog iyo qurux leh, waxay tidhi, anigu ma doonayo inaan dhiig daadiyo. Waxaan doonayaa inaad fahamto in dumarka la maamuuso. Haddaba waxaad noqon doontaa tusaale nool. Xadhig baan kugu xirayaa si ragga kale ay uga digtoonaadaan. Raggii oo dhan arrintaas waa ka argagaxeen. Dhalinyaradii iyo odayaashii waxay ka murmayeen sida loo jebin karo awoodda boqoradda. Laakiin dumarkii badankoodu waxay taageereen Caraweelo, waxayna ku ammaaneen sidii ay ugu adkaysatay xaqiinta xuquuqdooda. Xukunkii Caraweelo wuxuu keenay kala qaybsanaan. Qaar waxay ku tilmaameen inay ahayd geesi difaacday xuquuqda haweenka, qaarna waxay ku tilmaameen inay ahayd boqorad adag oo dulmiyey ragga. Si kastaba ha ahaatee, magaceeda weli waa la xasuustaa ilaa maanta. Sheekada Caraweelo waxay dadka baraysaa in hogaamiye kasta uu arko cadaalad xitaa meel aan lagu arag, inuu dhiirigeliyo kuwa la dulmiyo, oo uu ka hortago nidaam aan sinaan ku dhisnayn. boqorad Caraweelo waxay noqotay astaan muran badan dhalisay, laakiin weligeedna waxaa lagu xasuustaa inay ahayd qofkii ugu horeeyey ee ku dhiiriday inuu dumarka siiyo awood iyo cod buuxa ah. Subscribe dheh si aadan uga maqnaan sheekooyinka xiga. Sheekooyin xiise leh ayaan soo dii doonaa si joogto ah. Fadlan iyo isku dhaafin safarkeena sheekooyinka.